السلام عليكم حرجينا inaad fiican tahay meel walba iga daawanaysid hadda maanta waxaan idin wadaa qisada gabadh geesiyada oo qaanuunka wadankeeda ka saartay dhaqankii xumaa ee dambiilaha boqorayay dhibanahana dabrayay gabadhan waa gabadh Talyaaniga oo lagu magacaabo Franca Viola Franca waxay dhalatay 9kii bishii koobaad 1948 waxayna ku dhalatay Como Sicilia ee carigaasi Talyaaniga Franca waxaa dhalay aaba beeraley ah waxayna ahayd ilmaha reerka ugu weyn walaaladeeda kale way ka yaryaraayeen marka 15 sano maalinkii jirtay baa waxaa soo doontay wiil ay wada socdeen muddo 6 bilood ah oo reerkooda ka soo doontay waxaa dhacay doonitaankii iyo Frantigaliskii balse wali arooskii ma dhicin wiilka gabadha soo doontay abtigiis hooyadii la dhashay baa wuxuu yahay kamid yahay koox group ah oo mafia ah oo dalka waqtiga ka jirtay oo aad u dhibadnayd buu madax ka ahaa marka wiilka yaruna de kama maqneen waxa abtigi walwalaaqayo maalmo yar markii laga soo wareegay Frantigaliskoodii baa wuxuu sameeyay askarta waxbuu xaday miya wiilku waxbuu xaday kadibna waxa la geeyay xabsiga la geeyay waa la xidhay aabaha dhalay gabadha dhalay markii uu maqlay ninkii gabadha ka soo doontay in la xidhay markiiba wuxuu soo saaray go'aan ah in uusan ninkan gabadh ku darsan doonin hadii uu soo baxa xataa kor iyo hoos ba hadii uu saxsan yahay iyo haduu khaldan yahay ba wuxuu yiri anaga dawlad iyo askar waxa isku tabarmanihin marka wuxuu yiri waxaan doonayaa gabadheeda u doonayaa nin wanaagsan oo dhaqda ninka gabadha ka soo doontay ee gabadha u diideen waxa lagu magacaabaa Filippo marka Filippo wuxuu bilaabay maadaama gabadhii loo diiday inuu iskaga tago dalka Talyaaniga dhan uu aado Jarmalka wuxuu ku maqnaa muddo 2 sano kadib buu dalka dib ugu soo noqday markuu maqlay gabadhii loo diiday waxa soo doonay nin kale isagoo gabadha marnaba aan qalbiga ka saarin oo doonayay gabadhaas si uu ku helaba inuu helo markii uu wadanka dib ugu soo noqday wuxuu bilaabay inuu u hanjabo reerka gabadha dhalay inuu iyada wado walba uu ku cabsi gelin karo uu ku cabsi geliyo meel walba ay marti kaga soo horbaxo wax badan ku sameeyo cabsi geliyo handado uu ku dhaho hadii aan anigu ku guursan waayo waxaad ogaataa nin kale inuu ku guursanayn maalmaha kamida gabadha aabaheed uu ka maqnaa guriga waxa joogay hooyadeed walaaladeed iyada ka yaryar marka wuxuu soo kaxaystay Filippo 12 nin oo hubeysan maadaama uu abtigii tuug yahay 12 nin oo hubeysan buu soo kaxaystay waxay garaaceen gabadha hooyadeed iyo walaaladeed yaryara kadibna waxay xoog ku kaxaysteen gabadha markay kaxaysteen walaalkeed aad u yar oo ilmo yar ahaa baa ku dhago iska laalaadiyay uu ka fiqi waayay in walaashii laga kaxaysto ilmo yariisa aad u yar marka kiirana way la kaxaysteen waxay isdeen intaad ilmaha yarka iska reebaysaan ama lidin ku soo gaadha guriga marka kiirana way kaxaysteen nasiib wanaag markay kiira meel dhaxmarinayaan bay wadada kaga tageen oo iska reebeen gabadhii kaliya afduubteen kadibna wuxuu geystay beer walaalkii iska lahaa nimankii kale uu iska diray wuxuuna bilaabay gabadhii inuu kufsado wuxuu meesha ku haystay muddo 8 bari ah oo gabadhii marna kufsanayay marna u maaragtay kulaha cidna kuma guursanaysa maadaama ku kufsaday de anuun ba ku guursan kara kaliya maxaa yeelay dhaqanka iyo sharciga waqtiga jiray baa wuxuu ahaa 60meeyadii Talyaaniga ka jiray gabadha hadii la kufsado oo maxkamad la saaro ninkii kufsaday waxa kaliya ay maxkamaddu ku xukumayso waxay tahay gabadhii uu kufsaday inuu guursado wax kale oo lagu xukumayo ma lahan marka kama walwal qaba hadii la dacweeyo xataa in ay askartu ama ciidanku ama dawladdu ay wax ka qabanayso kama walwal qabo mar walba wuxuu ku lahaa maadaama ku kufsaday de aniga nin aan ahayn kuma doonayo ninkii hadda ku doonayo inuu ku guursado uu ka tagay anuun ba ku guursanaya 8 bari kadib wuxuu fariin u soo diray gabadha aabaheed wuxuuna ku yiri iyo waraaqo wuxuu ku yiri waraaqahan documentska waxaan doonayaa inaad ii saxiixdid kuwaas oo cadeynaya gabadhaadu in aanan afduubanin ee aniga iyadu intaan isdooranay aan isla baxsanay sidaana gabadhii aan kaaga guursado gabadha aabaheed uu saxiixay waraaqihii wuxuuna dib ugu celiyay ninkii gabadha ka afduubtay ee la yiraahdo Filippo wuxuu ku yiri waxaan doonayaa gabadhayda inaad ii keentid may waraaqaha uma celinin wuxuu ku yiri waraaqaha waan ku saxiixay waan ku siinayaa aan kala wareejisano adna gabadhayda ii keen ana waraaqaha aan ku siiyay kadibna gabadhii aad u saas ku raac laakiin gabadhaydii aan arko maalin bay ballameen Filippo wuxuu bilaabay inuu gabadhii soo kaxeeyo markuu 8 bari markuu haystay meeshii ku haystay buu gabadhii aabaheed dib ugu soo celiyay isagoo doonaya inuu waraaqihii ka qaato gabadha aabaheed uu is arkaan kadibna gabadhii marka dambe sida ku guursado laakiin gabadha aabaheed daacadnimo kama ahayn
wuxuu la xiriiray askarta wuxuu ku yiri gabadhaydii baa la iga afduubtay nin baa haysta 8 bari buu iga haystay waxaan doonayaa inaad guriga diyaar ku noqotaan heegan ku noqotaan waqtiga uu imanayo gabadha ii keenayo gabadha hala iga reebo isna xabsiga u taxaaba askar baa guriga ku sugaysa guriga markuu sidaa u yimid askar baa qabatay markiiba xabsiga loo taxaabay wuxuuna u sheegay aabahaasi gabadhiisa markii la xidhay ninkii maxkamad baa la saari doonaa laakiin waa la xidhay markaas wuxuu u sheegay wax walba iyo go'aan walba oo gabadhiisu ay qaadato inuu ku garab istaagi doono inuu u dagaalami doono ilaa iyo marka inta ugu dambaysa noloshiisa wacni weligiiba inuu garab taagnaan doono wuxuu ku yiri go'aan alla go'aankii kula qumanaaday eed qaadato waxaad ogaataa inaan garabkaaga ahay dartaadana u dagaalamayo tii way dhiirigelisay gabadhii iyana waxay go'aan hoosta ka xariiqatay ninkaa kufsaday marnaba inaysan guursan taasoo khilaafsan caadadii ka jirtay mujtamacii talyaaniga waqtigaas lixdameeyadii gabadha waxaa ka jirtay caadooyin iyo dhaqan aad u adag oo ah gabadha hadiiba ay dhacdo oo la kufsado ninka kufsaday kaliya unbaa guursan karaya hadduusan ninkaasu guursan weligeed lama guursanayo dhibaatooyinka ama cawaaqibta ay wajihi karayso hadday diida ninkaa kufsaday inuu guursadana waxay tahay in la dili karo hanjabaad afxumayn in lagu samaynayo faquuq iyadii familkeedaba iyo dhibaato iyo faragelin xoog leh in lagu samaynayo tani kufsi ma ahan marka waxa weeyaan waxa la yiraahdo inagu Soomaali ahaan aynu dhahno guurka loo yaqaano dhabar garaaca oo Soomaaliduba waqtigii hore ay sameyn jirtay ninka marka gabadh loo diido ama gabadha isagu intuu doon jeclaado iyadu diido siday doontaba ha ahaato laga yaabo mararka qaar ninku inuu gabadh ka helo gabadha isagoon reerkoodana ka doonanaysan u diidin iyaduna aysan afkeeda ula bixinaysan diidin inuu gabadhii intuu ka helo saaxiibadii soo kaxaysto garaaca dhabar garaaco qaabka ku guursado marka guurka dhabar garaaca ah ama waa kufsi waa afduub iyo kufsi isku jira guur ma aha kaas guur lagu magacaabi karayo marka inagu dhabar garaac baynu dhahnaa wuxuu ka jiraa dunida 17 wadan oo dunida kamid ah oo Talyaanigu kamid yahay inkastoo laga joojiyay Talyaaniga laakiin wali dunida wuxuu ka jiraa 17 dal Soomaalidu waxay tiraahdaa balaayo lagula qabo balaayo ma ahan marka Soomaalidu haday ku fikireysay dadka Soomaaliyeed in badan oo kamid ah haday ku fikirayeen dhabar garaacu wuxuu ka jiray Soomaalida waqtigii jaahiliyadii iyo waqti hore wadamo badan buu ka jiray qaarkood way ka tageen qaarna wuu ku dambeeyaa oo 17 wadan baan wali ka tagin dunida dusheeda hadeertan Franka waxay wajaheen iyada iyo reerkeedaba maadaama ay go'aansatay marnaba inaysan go'aankeeda ka labalaynin kaasoo ah ninkan inay maxkamad la tiigsato ogolaaninna guurkiisa qaanuunka xun iyo dhaqanka xun ee ma garanaysa dawladuna hirgelisay shacabkuna aaminsan yahayna xeerka inay ka saarto maaragtay wadanka dhanba ka saarto aabaheedu ku garab istaagay dhibaatooyin badan bay wajaheen banaanka oo maysa bixi karin maxkamadda markay aadayso waa in wajigeeda la qariyo dil baa loogu hanjabay reerkooda la xumeeyay wax walba lagu yiri laakiin marnaba kamaysa tanaasulin ugu dambeyn maxkamaddii waxay ku xukuntay ninkii gabadha kufsaday 12 sano oo xariga nimankii saaxiibadiisa ahaa ee gabadha la afduubayna waxay ku xukuntay maxkamaddii 4 sano mise 7 sano xariga way ku xukuntay isagii 11 sano muusan soo wada dhamaysanin 10 sano markuu soo dhamaystay buu xabsiga dib uga soo baxay waana la dilay markiiba maadaama uu mafia kamid ahaa markiiba mafiyadii baa dishay gabadha markii sidaas u dhacday ninka lagu xukumay 12 sano waxay samaysay waxa soo doonay markiiba 2 sano kadib markii xukunku dhacay waxa soo doonay wiil iyada ay saaxiibo ahaayeen aad saaxiibo u ahaayeen yaraantoodii isla soo koreen baa soo doonay si qurux badan buu u guursaday wuxuuna u ballan qaaday inuu siinayo farxad jacayl iyo ilaalin naftiisa inuu u hurayo si uu u ilaaliyo wuxuu u soo sharciyeystay sidoo gabadha amaankeeda u suga maadaama dhibaato badan ay ku qabtay dhanka shacabka ay dhibaatooyin badan kala kulantay biskoolad buu soo sharciyeystay mar walba meel walba ay aadayso biskoolad buu ku ilaalin jiray haday baxayso wuxuu siiyay jacayl ay ku ilowda dhibaatadii martay iyo amaan aabaheedna wuxuu garab taagnaa mar walba go'aan walba ay qaadatana gabadhiisa ku garab taagnaa aaba noocaas in la helo dunida wallahi aad bay u yartaa halka aabayaasha qaar waliba muslimiin isku sheegayay gabdhahooda ay u jujuubaan nimankii dhibaatada u geystay way ku khasbaan inuu guursado ama in uu in yaro lacag intuu bixiyo ay ka qaataan waxa jirta gabadh Pakistaaniyad oo sheekadeeda maalmahan oo dhan social media dhaxyaacaysay gabadhaas aabaheed baa wuxuu raali uga noqday nin inuu kufsado kadibna dilo waa aaba muslima
isagoo ka duulaya gabadhaas waxay ka baxday caadadii iyo dhaqankii u yaalay qabiilkanaga ama dowladanada. marka aaba cajiib u ah runtii aad iyo aad u fiican. Franka intii ay ku guda jirtay maxkamadayntii iyo dhibkii iyadii ninkan ay arrintii ka dhaxaysay intay ku jirtay waxay la kulmaysay dhibaatooyin aad u badan oo kaga imanaya dhanka shacabka. marka waxaa soo dhex galay warbaahinta iyo dowladda, si gaarana baarlamaanka iyo madaxweynaha. markii ay guursatay wiilkan ay isguursadeen saaxiibkeedii yaraantii, arooskoodii uu noqday wax dalka dhan laga hadal hayo. madaxweynaha dalka Talyaaniga wuxuu u hadiyeeyay oo hadiyada arooskooda uga dhigay lacag aan maskaxdaada gali karayn, aad u badan. iska qiyaastay madaxweyne markuu u hadiyeynayo qof shacabkiisa, markuu wax u hadiyeynayo wax yar uma hadiyeeyo, wax aad u weyn oo maaragtay weligiiba la xasuusto buu u hadiyeeyaa. wuxuu u hadiyeeyay lacag $40 ah oo u dhiganta hadda $250. waa qiimo lacageedu aad u badan u qalanta madaxweyne inuu u hadiyeeyo qof shacaba. wasiirka gaadiidkana wuxuu u hadiyeeyay oo hadiyada arooskoodii uga dhigay 1 bil inay si bilaash ku raacaan tareemada wadanka. waxaan ka wadaa ra'iisul wasaaraha, wasiirka dhaamay baan ka wadaa madaxweynaha $40 buu u hadiyeeyay. laakiin waqtiga wax weyn bay kullay ahayd, waqti hore ahayd. Franca Viola hadda waxay jirtaa 73 sano. waxay noqotay hooyo, waxay noqotay ayeeyo, waxay ku noolaatay nolol qurux badan. waxay ka saartay dhaqankii xumaa iyo caadadii xumaa ee dalkeeda ka jirtay, oo waxay siisay dumarkii ka dambeeyayba xornimo ay ka helaan dhinacaas. waxaa la siiyay abaalmarino aad u fara badan. waxaana laga sameeyay sanadku markuu ahaa 1970kii filin la yiraahdo ooridii ugu quruxda badneyd ama xaaskii ugu quruxda badneyd la yiraahdo, oo laga sameeyay qisadii gabadhaas qisadeeda laga sameeyay 2017kii. sidoo kale waxaa laga sameeyay filin yar oo 15 daqiiqo soconaya, waxaana ka sameysay filin soo saare, naag filin soo saare ah oo Talyaaniga ka sameysay. marka nolol qurux badan bay iskaga nooshahay, iyadoo lagu xuso oo lagu xasuusto ilaa maalinka maanta ah gabadha la yiraahdo Franca Viola inay meesha ka saartay ama qaanuunka dalkooda ay ka saartay dhaqankii xumaa ee dambiilaha boqorayay, dhibanahana dabrayay. waxaan rajaynayaa gabdhaha Soomaaliyeed ee la kulma dhibaatada noocaas oo kale taa kufsiga la kulma, dhibaato badan la kulma, marnaba inaysan ka qaadanin in yaroo lacag lagu saabsaabeeyo iyo inay odayaal intay soo dhex galaan dhaqan maaragtay xeer hoosaad iyo waxaas ama xeer jajab iyo ay waxaas ku dhameeyaan hawsha. halkan haddaan isla soo gaarnay oo sheekadan dhamaysatay, aad baan kaaga mahadcelinayaa. muuqaalkan haddaad ka heshay fadlan like saar si aad noogu soo biirto, subscribe taabo wixii fikir iyo ra'yi isweydaarsi ama aad jeceshahay sheekadan kaaga baxay aad doonaysa inaad nala wadaagto qaybta hoose ee faalada noogu reeb. wayna muuqaalka kan xiga insha Allah. nabad iyo caafimaad baan idinka tagay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ha ilaawin share oo la wadaag asxaabtaada muuqaalkan si channelka dadka ku soo xidhma ay u bataan oo qoyskeenu u balaadho. mahadsanid.